شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا Netherlands Holland waa dal dhaca galbeedka qaaradda Yurub waxa uu xuduud la leeyahay wadamada kala ah Germany iyo Belgium sidoo kale waxa uu xuduud badeed la leeyahay wadanka UK Holland waa dal aad u yar baaxad ahaan waxa uu ku fadhiyaa dhul dhan 41543 kiiloomitir oo wareeg ah waana in ka yar hal mar iyo ka badan baaxadda gobolka Gado Holland waxa ku nool 17 milyan oo qof waana dal aad cidhiidhi u ah waxaana lagu tilmaamaa wadamada ugu cidhiidhisan dunida marka laga eego baaxadda dhulkiisa Holland waa dal aad u horumaray dhaqaale ahaan dad ahaan iyo aqoon ahaanba waana mid kamid ah wadamada ugu dhaqaalaha badan dunida Holland waa dalka 18aad ee ugu dhaqaalaha badan dunida sidoo kale waa dalka 7aad ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda Yurub dhaqaalaha ama wax soo saarka guud ee wadanku waa 924 bilyan nominal halka awoodda wax iibsiga dalku la leeyahay dal kale ay tahay 909 bilyan dakhliga soo gala dadka wadanka ku nool waa 56,000 sanadkii waana dalka 13aad ee ugu sareeya dunida dhanka waxbarashada caafimaadka nolosha amniga iyo dalxiiska wadanku waa mid kamid ah kuwa ugu horeeya sidoo kale qiimeyn la sameeyay wadamada ugu farxadda badan dunida Holland waxay noqotay dalka lixaad ee ugu farxadda badan dunida Holland waxa ay kamid tahay 10 dal ee ugu wax dhoofinta badan dunida sidoo kale Rotterdam Port waa dekada ugu weyn qaaradda Yurub Holland waxyaabaha ay aad ku dhoofiso waxa kamid ah ubaxa qudaarta iyo caanaha oo la qalajiyay wax soo saarka dalka 21% waa beeraha waxa ka yimaada Amsterdam waa caasimadda dalka ahna magaalada ugu weyn halka Hague ay tahay magaalada looga arrimiyo dalka sidoo kale waa xarunta hay'adaha cadaaladda dalka iyo kuwa internationalka ICJ ICC iyo kuwa gobolka wadanku waa nidaam boqortooyo oo baarlamaani ah ra'iisul wasaaruhu waa hogaamiyaha dawladda Holland waxa lagu tilmaamaa wadamada ugu dalxiiska badan dunida sanad walba waxa soo booqda malaayiin dalxiisayaal ah oo ka kala yimaada Aasiya iyo Ameerika